dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iideysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shirqoolkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lala damcay in lagu dilo markii uu jab ku soo dhacay mushrikiintii Quraysheed dagaalkii Badar, waxaa Maka buuxiyey colaaddii loo qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay odayaashoodii ayuu dagaalkaas ku laayay. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa guri wada fadhiistay Safwaan bin Umaya oo aabbihiis iyo walaalkiis Badar lagu dilay, iyo Cumayr bin Wahaab al-Jamuuxi oo ka mid ahaa dadkii aad u dhibi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa. gurigaas ay isku soo xidheen cid joogtay ma lahayn aagagaarkiisa, xitaa waxay ahaayeen labadooda oo keliya. Cumayr bin Wahaab waxaa isna dagaalkii Badar looga qafaashay wiilkiisii Wahaab bin Cumayr. waxay labadaa nin ka sheekaysteen dadkii Badar lagu laayay iyo ceelkii lagu guray meedadkooda. markaas ayaa Safwaan wuxuu yidhi, ilaah baan ku dhaartaye nolosha iyaga ka dambaysa nolol maaha. Cumayr ayaa markaas isna yidhi, run baad sheegtay, ilaah baan ku dhaartay haddii aysan jirin dayn la igu leeyahay oo cid iga gudaysa aysan jirin, iyo ciyaal aan rafaad uga baqaaya gadaashay, rakuubkayga ama ratigayga ayaan fuuli lahaa ilaa aan Maxamed u tago oo aan soo dilo. arrin aan ku cududaartana waan haystaa oo wiilkaygii ayay qafaasheen. Safwaan ayaa markaas jeclaystay fikraddaas uu soo jeediyey Cumayr, wuxuuna yidhi, dayntaadu waa dushayda oo aniga ayaa kaa gudaya, ciyaalkaaguna ciyaalkayga ayay la noolaanayaan, inta ay nool yihiinna wanaag ayaan u samaynayaa. Cumayr wuxuu yidhi, qari go'aankeenna. Safwaan asna wuxuu yidhi, waa yahay, aniga ayaad igu og tahay, adigana waxaan filayaa inaad hawshaad ka soo bixi doonto. labadaas nin ayaa waxay ku heshiiyeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay si qarsoodi ah u dilaan. Cumayr seeftiisii intuu qaatay ayuu ratigiisii fuulay, kadibna u dhaqaaqay dhankaas iyo magaalada Madiinatu Munawwara si uu Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam u soo dilo. markuu tagay magaalada Madiina isagoo hashiisii masaajidka agtiisa ku arruminaya, waxaa arkay Cumar bin Khadaab oo koox muslimiinta ka mid ah la sheekaysanayay. markaasuu yidhi Cumar, eygaan Cumayr ah oo cadowga Ilaahay ah, wax aan shar ka ahayn halkaan lama imaanin maanta. kadibna Cumar waxa uu u tegey Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi, nebigii Allow, kani waa cadowgii Ilaahay ee Cumayr oo seeftiisii jeeni qarsaday, yacnii soo qarsaday. markaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi, ii soo daaya. Cumar bin Khadaab ayaa u tegey Cumayr isaga oo seeftiina ka qaaday, dharkana u saaray. rag muslimiinta ka mid ah ayuuna ku yidhi, iila geeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa aan fadhiisinne, kana digtoonaada, aamin maahane kani. markii loo soo geliyey oo uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam arkay Cumar oo wada gacantana ka haya, ayuu yidhi, soo daa Cumarow, war Cumayrow soo dhowow adiguna. markaasuu Cumayr soo dhowaaday, wuxuuna yidhi, subax wanaagsan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ugu jawaabay, ilaahay wuxuu nagu karaameeyey salaan ka khayr badan salaantaada Cumayrow, waana salaanta ehlu jannaha. kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, maxaad u timid Cumayrow? wuxuu yidhi, waxaan u imid inaad ii soo daysaan wiilkayga aad soo qafaalateen. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, maxay tahay seeftan aad qoorta ku wadato? Cumayr wuxuu yidhi, Allah hoojiya seefaha, ma waxbay noo tareen? oo uu ula jeedo dagaalkii Badar ayay wax noo qaban lahayd seeftu. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, runta ii sheeg, maxaad u timid? wuxuu yidhi, arrintaas ma ahane, wax kale uma imaanin halkaan. markaas ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, adiga iyo Safwaan baa qol wada fadhiistay, waxa aadna ka wada sheekaysateen dagaalkii Badar iyo dadkii godka lagu guray ee Quraysheed. waxaadna markaas tidhi, haddii aan dayn laygu lahayn, ciyaalna ii joogin, waan bixi lahaa ilaa aan Maxamed soo dilo. Safwaan ayaa markaas dusha saartay dayntaadii iyo ciyaalkaagii si aad aniga ii disho, ilaahayna waana kala fogeeyey aniga iyo arrinkaas. Cumayr wuxuu yidhi, waxa aan qirayaa inaad tahay rasuulkii Ilaahay, waxaana annagu ahayn kuwa rasuulkii Allow kugu beeniya in qamar samada kaaga yimaado waxayna kugu soo dego. arrintaana cid kale nalama ogayn aniga iyo Safwaan. ilaah baan ku dhaartaye waxaan ogaaday Allah ma ahane cid kale inaysan warkan kuu keenin. alle ayaa mahad iska leh, allihii islaamka igu hanuuniyey, socodkaana ii soo waday.
dabadeedna tawxiidkii ayuu qiray. Markaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi asxaabtiisii, fahamsiiya walaalkiin diintiisa, qur-aankana u akhriya, maxbuuskiisana u sii daaya. ninkii Safwaan ahaa oo Cumayr ay ballanta isku ogaayeen wuxuu reer Maka ku dhihi jiray intuu Cumayr maqnaa, ku bishaaraysta dhacdo imaan doonta dhowaanahan oo idin hilmaamsiin doonta dhacdadii dagaalkii Badar, oo ula jeedo waxaa la dili doonaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna dadka socotada ah ee Madiina ka yimaada weydiin jiray Cumayr iyo xaaladiisa, ilaa markii dambe loo soo sheegay inuu Cumayr islaamay kana mid noqday asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Safwaan wuxuu markaas ku dhaartay inuusan Cumayr dib dambe ula hadli doonin, waxna tari doonin carruurtiisa. kadib ayaa Cumayr Maka ku soo laabtay isagoo soo islaamay, wiilkiisiina loo soo daayay, wuxuuna Maka ka bilaabay dacwo uu dadka islaamka ugu yeerayo. dad badan ayaana gacantiisa ku islaamay. halkaasna waxaa ku burburay shirqoolkii lala damcay in lagu dilo Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaana asxaabta rasuulka ku soo biiray Cumayr bin Umaya oo ka mid ahaa asxaabtii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. aanu ku wada salinno xabiibkeenna Muxamed calayhi salaatu wasalaam. allaahumma salli calaa sayidina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam. waa farriin kaaga timid walaalkaa Saki Cabdi Yaasiin.